fadlan hadduu ku soo gaaro muuqaalkan laag saar siina sheer garay aad iyo aad u mahadsantahay. awal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan kusoo dhawaada juuqa media. Barnaamijka waxaa kala socotaan barnaamijyadii ugu dambeeyay sportska, xanta suuqa kala iibsiga, maxaa laga yiri, maxaase laga filayaa kulamadii xalay laga ciyaaray iyo kuwa maanta. Waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkeeni kulamadii laga ciyaaray xalay. intaan gudagalin barnaamijka waxaan kaa codsanayaa haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe saar, laag dheh si uu u gaaro asxaab badan. aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaa daawashada muuqaalkan. waxaa xalay la dheelay kulamo ka tirsan UEFA Nations League heerkiisa group stage-ka. waxaa xalay isqabtay oo iswajahay xulalka kubadda cagta Croatia iyo Faransiiska oo guuldaro watay kulankii hore ayaa booqday Croatia, walow kulanka oo kusoo dhamaaday barbardhac gool ah. haddana Faransiiska waayaheedii xumaa ayay gudaha ugu jirtaa. sidoo kale xulka kubadda cagta Croatia ayaa kulankii hore guuldaro kasoo qaadatay Austria, sidaasna xalayna waxay barbardhac la gashay xulka kubadda cagta Faransiiska. labada xulba waa isku korkufeen, kulamadii horena guuldaro ayay soo qaateen. gruubkooda waxaa hogaaminaya Denmark oo leh 6 dhibcood iyo Austria oo 3 dhibcood leh. Denmark oo labadii kulan ay dheeshay oo badisay ayaa hoggaanka gruubka hayso. haddii group stage san oo ku dhamaadana Denmark ayaa u aadi doonta heerkiisa semifinalka ee UEFA Nations League. sidoo kale waxaa la dheelay kulamo kale ka tirsan UEFA Nations League heerkiisa group stage-ka. waxaa iswajahay Iceland iyo Albania oo barbardhac 1-1 oo ku idlaaday. sidoo kale waxaa wada dheelay Belarus iyo Azerbaijan oo iyakan ewer ku kala baxeen. sidoo kale Slovakia iyo Kazakhstan ayaa iswajahay. Kazakhstan ayaana 1-1 ku adkaatay. sidoo kale kulamadaas ayaa ugu xiisaha badnaa UEFA Nations League. maxaa la filayaa maanta UEFA Nations League ilaa iyo Cup of Nations oo iyadana kulamo xasaasi leh laga dheeli doono. waxaa ka mid ah haddii aan ka bilaabno qaaradeena Africa, waxaa wada dheeli doono Eswatini iyo Burkina Faso. sidoo kale waxaa wada dheeli doono Zambia iyo Comoros. Rwanda iyo Senegal ayaa ah kulanka ugu dambeeyo ee caawa la wada dheeli doono. Senegal oo kulankii hore soo adkaaday, Mane oo 3 u dhaliyay xulkiisa, haddana xaalad suuq ku jiro ayaa caawa wajihi doona Rwanda. waa arki doonaa wixii oo kusoo dhamaada kulankaas. sidoo kale waxaa jira caawa kulan aad iyo aad u xiiso badan, kulan xamaasadiisa wato, kulan waali ah, kulan ay wada sugayaan dhammaan taageerayaasha reer Germany iyo dhammaan taageerayaasha reer England, maadaama ay yihiin laba xul oo awood badan, baryahan aan marnaba loo saadaali karin ciyaarta. Germany ayaa soo dhibay doonta England. kulankaas ayaa ah kulanka ugu weyn isleeyahay caawa 3:45 ayuu soo galayaa. sidoo kale waxaa dheeli doona Turkiga oo dheelayaa, waa arki doonaa haddii uu badiyo haddii kale. waa xul awood badan Turkiga. kulamadaas ayaa jiro. kulamada xalay ilaa iyo caawa sidaas ay kala marayaan. maxaad ku saadaali lahayd kulanka u dhexeeyo Jarmalka iyo England? saadaali oo fikirkaaga ka dhiibo. haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo bartamaha barnaamijka fadlan subscribe saar, laag dheh si uu gaaro asxaab badan, siina sheer garay aad iyo aad u mahadsantahay. waxaan 1 iyo 2 ka taaban doonaa xogii ugu dambeeyay xanta suuqa kala iibsiga, wararka xanta, waxyaalaha la filayo. waxaa lagu soo waramayaa xidiga kooxda kubadda cagta Juventus heshiiskiisa ka dhacay Paulo Dybala ayaa hadda si toos ah wada hadallo la furay wakiiladiisa iyo kooxda kubadda cagta Nerazzurri Inter Milan ayaana noqon doonto koox usoo jabhadeyso lana fadhiisan doonto xidiga Paulo Dybala, xidiga reer Argentine. Dybala ayaana la rajeynayaa inuu dhankaasi qabto. sidoo kale Dybala naftirkiisa ayaa ka hadlay, wuxuuna yiri wax walba waa iska dhamaan doonaan. wadahadal ayaa hadda kula jira kooxa badan oo Inter Milan ay koox ka tahay, walow lagu xamanayo in dhankan iyo Premier League uu jeclaan lahaa inuu soo aado La Liga. laakiin hadda Dybala wuxuu wadahadalo ay la fureen iyo wakiiladiisa, heshiiska buuxana uu lala gaari doono
Inter Milan, heshiiska buuxdana oo la gaari doono naadigii anfacdo, waxaan ugu cadcad naadiga kubadda cagta ee Inter Milan. Sidoo kale weli waxaan dhammaanin heshiiska Aaron Dejinami oo suuqa haysto, maadaama uu suuqa ka baxay Kylian Mbappe. Waa xidig ugu shidan ee hadda ay shaashadaha qabanayaan haddii suuq wax laga fiiriyo. Dejinami oo xulka kubadda cagta Faransiiska iyo AS Monaco u ciyaaro ayaa hadda lagu waramayaa in ay is afgarteen asiga iyo wakiiladiisa, waxayna heshiis la gaari rabaan Real Madrid. Shaqadan way socotaa, wax walbo meel fiican ayay marayaan. Sidoo kale xidiga aan marnaba laga celi karin naadiga kubadda cagta Barcelona, Roberto Lewandowski ayaa xaqiijiyay in uu kaliya doonayo in uu dhaqaaqo oona aqbalo heshiiska Barcelona. Nou Camp inuu ka tago bis ayuu rajeynayaa laga bilaabo haatan. Bayern uma socda ayuu leeyahay ninkan, xitaa haddii la gaaro July isku diyaarinta kulamada pre-seasonka xitaa uma socda ayuu leeyahay. Haddii dhacdo inay Barcelona heshiis aan la gaari waayo xilligaas, Lewandowski heerkaas ayuu marsiinayaa naadiga kubadda cagta Bayern Munich. Sidoo kale xidiga banaanka yaalo, xidigii ka tagay naadiga kubadda cagta Manchester United, Paul Pogba ayaa waxaa laga hayaa Juventus ayaa wadahadalo horumar leh la furtay kula jirta wakiilada Paul Pogba. Heshiis sanadkii uu ku qaadanayo 8 milyan mushaar ahaan ayuu u qaadan doonaa haddii ay isku afgartaan. Real Madridna hubaal way iskaga baxday tartankiisa soo xirigelinta Paul Pogba, maadaama Dejinami ay gacanta inay ku dhigaan ay damacsan yihiin. Sidoo kale xidig kooxda kubadda cagta Matthias de Ligt ayaa xaqiijiyay in mustaqbalkiisa uu shaki ku jiro, oona xaqiiji doono maalmaha soo socda ama ilaa iyo July dhamaadkeeda, maadaama uu doonayo isbedel. Juventusna ay aad iyo aad ugu warheyso in boos joogta uunan ka heli doonin, maadaama warkaas ay maqashay Juventus iyadan waxay u dhaqaaqday xidiga kubadda cagta xidiga naadiga kubadda cagta Napoli, Kalidou Koulibaly ayay soo xirgeli doontaa, bedelkiisana way diyaarsatay Delight. Haddii heshiiska uu kordhi waayo waxaa imaan doono Kalidou Koulibaly. Waxaa sidoo kale suuqa kala iibsiga mucjise inay ka dhacda laga filayaa xidigii hore ee PSG eena macsalaameeyay kooxdiisa Di Maria ayaa wadahadalo la furay naadiga kubadda cagta Barcelona si uu ugu biiro. Heshiiskaasna waa heshiis sir ah maadaama uu wadahadalo uu kula jiray naadiga kubadda cagta Juventus, laakiin hadda waxaa lasoo warinayaa in Barcelona uu ku biiri doono. Weliba Barca ayaa kacsan oo leh Di Maria, Salah iyo Lewandowski baa qaadan doona, laakiin mushaar ahaan ma filayay inay anfici doonto. Laakiin waxaa waaye wax walbo dadaal iyo dhaqaalo qaab ay ugu imaan doonaan, maadaama Aubameyang ba ka warheynin in 5,000 miya oo ku bilowday heshiiskiisa. Haatan warkaas ayaa ugu weynaa ee suuqa kala iibsiga ka soo baxa. Di Maria waxaa leeyahay Barcelona Real miyuu soo dheelay mise ma la fiirinayo sanadkan, kaliya mushaar inta iga jiraa inteesana ku qanacsanahay ayay maraysaa. aad ka mahad celinaa daawashada muuqaalkan. Haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka, fadlan like saar, subscribe-na dheh, siina share garay, la wadaag asxaabtaada. aad u mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.